السلام عليكم صاحبي كل جيمبا meel kastoo aad nagala socotaan halkani waa Garaa TV qodobada aad xilligan ay ku daawan doontaan wararkeena waxaa kamid ah dadaal socday oo la doonayay in ay isbahaysi siyaasadeed ku sameystaan madaxweyne Farmaajo iyo Siciid Cabdullaahi Dani si ay ugu galaan doorashada oo fashilmay kadib markii uu gaashaanka ku dhiftay Siciid Dani guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo soo saaray fariin ku socota murashaxiinta madaxweyne iyo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo kulan la yeeshay howlgalka midowga Afrika ee ATMIS murashaxiintii ugu badnaa oo lagu wado inay ku dhawaaqeen inay iskaga hareen tartanka doorashada madaxweynaha ee ka dhacaysa teendhada Afisyoone ka hor saacadaha aysan halkaasi ka bilaaban dowladda Mareykanka oo badashay qaabkii ay ula dhaqmi jirtay Somaliland maxaa isbedelay wararka Garaa TV ayaad ku daawan doontaan iyo dowladda isku tagga Imaaraadka Carabta oo yeelatay madaxweyne cusub ka gadaal geeridii ku timid madaxweynihii hore ee dalkaasi Imaaraadka qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne sidaas raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal isku soo laabasho habboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku bilownay saaxiibayaal sidaad horudhaca wararkeena ku daawateen waxaa si buuxda u fashilmay dadaal ay wadeen waxgarad iyo siyaasiyiin kaasi oo lagu doonayay in isbahaysi siyaasadeed ay ku sameystaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani kuwaasi oo labaduba ka mid ah murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo doorashadiisa ay ka dhiman tahay saacado kooban dadaaladani waxaa saacadihii la soo dhaafay ka waday magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka siyaasiyiin iyo waxgarad u dhashay beesha ay ka soo jeedaan Farmaajo iyo Siciid Dani kuwaasi oo doonayay in ay isbahaysi u sameeyaan Farmaajo iyo Siciid Dani si ay codadka iskugu beeriyaan marka la tago sanduuqa qarsoodiga ah ee yaalla teendhada Afisyoone waxaa sidoo kale dadaalkan ee qayb ka ahaa qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya ku matala beesha ay ka soo jeedaan Farmaajo iyo Siciid Dani kuwaasi oo waqti xoogan galiyay si ay uga mira dhaliyaan dadaalkooda isla markaana ay iskugu soo dhaweeyaan Farmaajo iyo Siciid Dani uguna qanciyaan in ay codadkooda isku biirsadaan marka la gaaro tartanka doorashada siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo sidoo kale xildhibaanada ku howlana arrintani ayaa aaminsanaa in iyada oo la eegayo isku beelahaanta Farmaajo iyo Siciid Dani in la sameeyo isbahaysi siyaasadeed si uusan xukunku u dhaafin beeshooda isla markaana haddii mid ka mid ah uu guuleysto loogu shubo kan kale laakiinse hogaamiyaha Puntland Siciid Dani oo si weyn uga soo horjeeda madaxweyne Farmaajo ayaa ku gacan sayray dadaalkaasi ay wadeen siyaasiyiinta iyo waxgaradku isla markaana ay ku doonayeen inay iskugu soo dhaweeyaan labada murashax ee beeshaasi ugu cadcad madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa si cad ugu sheegay dhinacyadii waday arrintaasi ee u tagay inaanu marnaba doonaynin inuu isbahaysi siyaasadeed la galo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay si weyn iskugu hayaan arrimaha siyaasadda isla markaana uu ka soo horjeedo inuu xukunka mar kale dib ugu soo laabto balse qaar ka mid ah shakhsiyaadkii ku howlanaa qadiyadaasi oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in Siciid Dani sababta uu arrinkaasi u diiday ay ka mid tahay inuu isbahaysiyo kale la galay murashaxiinta kale ee u tartamaysa xilka madaxweynaha Soomaaliya kuwaasi oo ay siyaasad ahaan isku dhow yihiin Farmaajo iyo Siciid Dani waa labada murashax ee hadda ugu cadcad isla markaana ku guuleysan kara kursiga madaxtooyada ee ka soo jeeda beeshaasi waxaana siyaasiyiinta xildhibaanada iyo waxgarad ka bilaabay dadaaladani ay aaminsanaayeen in haddii ay codadkooda isku biirsadaan aanu xukunku dhaafaynin beeshooda isla markaana iyaga un ay ku guuleysan karaan
hase yeeshee guuldarro ayay kusoo dhammaadeen dadaaladaasi iyadoo saacado kooban hadda ay naga xigaan doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ka bilaabanaysa teendhada afisyoone ee magaalada muqdisho islamarkaana ay u tartamayaan murashaxiin badan oo doonaya inay noqdaan madaxweynaha tobnaad ee wadanka soomaaliya. madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa markii uu magaalada garowe kaga dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in ajandihiisa koobaad uu yahay sidii uu meesha uga saari lahaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xukunkiisa oo uu tilmaamay inuu kala geeyay soomaalinimada sidoo kalena qalqalgelin weyn ku sameeyay siyaasadda maamulka puntland. madaxweyne farmaajo ayaa markii labaad waxa uu ka mid yahay murashaxiinta ugu cadcad ee la isdhihi karo waxa uu kusoo baxayaa kursiga madaxtooyada soomaaliya inkastoo wajahayo dhinacyo badan oo kala dagaalamaya inuu mar kale xukun ka yimaado maadaama ay siyaasadda isku hayeen 5 sano ee lasoo dhaafay oo wadanka xukumayay madaxweyne farmaajo. halka shay ee ilaa hadda la hubo marka la eego saadaasha doorashada waa inuu wareega koobaad ee doorashada ka gudbayo siciid cabdulaahi deni isaga oo ay heerkaasi gaarsiin karaan xildhibaanada uu gacantiisa kula soo baxay ee kasoo galaya baarlamaanka wadanka puntland iyo sidoo kale xildhibaanada jubbaland oo uu wadatashi ku lahaa soo saaristooda. balse ma jirto rajo badan oo muujinaysa in siciid deni uu noqon karo madaxweynaha tobnaad ee dalka isagoo taa beddelkeedana uu qorshihiisa labaad yahay haddii uu noqon waayo madaxweynaha in codadka uu haysto uu ku gorgortamo si uu ra-iisul wasaare uga noqdo wadanka. waxaana la tilmaamay in hadda heshiis qaabkaasi u dhigan uu dhex maray siciid cabdulaahi deni iyo madaxweynihii hore ee wadanka xasan sheekh maxamuud kaasi oo ay isla yihiin xisbiga la yiraahdo damul jadiid. waxaana la tilmaamay in codadka siciid deni ay aadi doonaan dhanka xasan sheekh maxamuud si haddii uu ku guuleysto xasan kursiga madaxtooyada ra-iisul wasaaraha dalka looga dhigo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni. waa tahay saaxiibayaal guddiga isku dhafka ah ee doorashada madaxweynaha ayaa war cusub ka soo saaray doorashada hoggaanka dalka oo ka dhacaysa teendhada afisyoone ee magaalada muqdisho waxaana ay fariin u direen murashaxiinta u taagan xilkaasi. qoraal kooban oo kasoo baxay guddiga ayaa waxaa fariin loogu diray xubnaha murashaxiinta iyadoo laga dalbaday in murashax kasta uu soo gudbiyo qof wakiil uga ah tirinta codadka doorashada xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka dowladda soomaaliya. dhammaan murashaxiinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa laga codsanayaa inay kasoo jawaabaan codsiga guddiga doorashada madaxweynaha oo ah in murashax kasta guddiga usoo gudbiyo xubinta u tirinaysa codadka ayaa lagu yiri qoraalkani kasoo baxay guddiga. sidoo kale guddiga ayaa u qabtay murashaxiinta inay kusoo gudbiyaan xubintaasi codtirinta ah 12 duurnimo haddii kale aysan u suurtogelin in hoolka uu yimaado qofkaasi. murashaxii soo gudbin waaye waqtiga loo qabtay uma suurtogeli doonto inuu hoolka doorashada soo galo. qofka la socda waqtiga kama dambaysta ah ee soo gudbinta magacyada waa 12 duhurnimo ee axadda ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay. dhinaca kale ammaanka ayaa loo adkeeyay waxaana bandow lagu soo rogay caasimada kaasi oo bilaabanaya 9 fiidnimo ilaa laga gaarayo maalinta isniinta ah ee ku xigta maalinta ay dhacayso doorashada. tartanka doorashada ee sanadkani waa mid aad u adag waxaana ku loolamaya ku dhawaad 40 murashax oo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee dalka uu ka mid yahay kan hadda waqtigu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo. dhinaca kalena guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay kulan ku saabsan amniga doorashada la yeesheen guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha iyo saraakiisha howlgalka ATMIS ee gacanta ku haya amniga doorashada. shirka waxaa kasoo qeyb galay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee midowda Afrika taliyaha guud
ee ciidanka nabadgelyada taliyaha guud ee booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xinjaar iyo saraakiil kale oo ka tirsan howlgalka ATMIS iyo booliiska Soomaaliyeed. Kulanka ayaa waxaa saraakiisha lagu faray inay ka wada shaqeeyaan sidii la iskaga kaashan lahaa in doorashadu ay ku dhacdo qaab nabdoon. Gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaana si adag ula dardaarmay saraakiisha ciidanka howlgalka midowga Afrika ee ATMIS iyo kuwa booliiska Soomaaliyeed iyaga oo faray qaabka ay u wajahayaan amniga doorashada madaxweynaha ee ka dhacaysa teendhada Afisyoone. waxaa jirta cabsi laga qabo inay jiri doonaan qolyo isku daya inay qalqalgeliyaan doorashada ama ay si qasaba ku yimaadaan teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ah xildhibaanadii laga soo doortay Garbaharey ee uu diiday gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana uu hortooda ku sharciyeeyay xildhibaanadii kale ee lagu soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Sigado. waa hagaag saaxiibayaal shabakada wararka ee Garaa TV ayaa weli toos inooga daawanaysaan iyadoo ay saacado kooban inaga xigaan doorashada madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya way sanadkani u taagan yihiin in ku dhow 40 xubnood ayaa xilligani waxaa soo baxaya in murashaxiintii ugu badnaa oo ka mid ah kuwa isdiiwaan galiyay ay doonayaan inay iskaga haraan tartanka doorashada si aysan ugu ceeboobin sanduuqa qarsoodiga ah ee Afisyoone. wararka ay helayso warbaahintu waxay muujinayaan in murashaxiintii ugu badnaa ee horay iskugu diiwaan galiyay tartanka doorashada madaxweynaha in hadda ay qorsheynayaan saacadaha fooda inagu soo hayay inay ku dhawaaqaan iskaga haridooda tartanka doorashada madaxweynaha tobnaad kadib markii ay dareemeen in aysan haysan codad ay guul ku gaari karaan. saacadihii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa iskaga haray tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya ilaa dhowr murashax oo sheegay inay u tanaasuleen murashaxiin kale si ay u soo dhisaan isla markaana codadka ay haystaan aysan uga kala dhantaalmin. dadka horay u tanaasulay saacadihii u dambeeyay waxaa ka mid ah Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug iyo Dr. Cabdinaasir Cabdille oo isaguna ka soo jeeda Galmudug, kuwaasi oo u tanaasulay siyaasiga weyn ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sanadkii saddexaad oo xiriir u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya hase yeeshee 2 jeer oo hore aan ku guuleysan. waxaa jira murashaxiin kale oo qorsheynaya ku dhawaaqista tanaasulkooda iyo inay u daneeyeen murashaxiin kale oo ka mid ah kuwa ugu cadcad ee hadda loo saadaalinayo xilka madaxweynaha Soomaaliya. magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa ka socda ololihii ugu dambeeyay ee doorashada madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya way ku baratamayaan 39 murashax oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha ilaa iyo hadda. doorashada oo dib uga dhacday muddadii loogu talagalay ee dastuurku oggolaa in lagu qabto taasi oo soo jeetamaysay in ka badan 1 sano ayaa 329 mudane oo ka tirsan golaha shacabka iyo aqalka sare kusoo afmeeri doonaan teendhada Afisyoone iyagoo gacantooda ku dooran doona hogaamiye ka samate bixin kara hubanti la'aanta ay ku jirto Soomaaliya, kaasi oo noqon doona madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo idleeyay 10kii bishani diiwaangelinta murashaxiinta madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya iyagoo siiyay hadaljeedinta murashaxiinta 11 ilaa 12kii bishani. murashaxiinta oo soo bandhigayay barnaamijkooda siyaasadeed ee ay ku hogaamin doonaan Soomaaliya 4 sano ee soo aadan. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo sanatarada aqalka sare ayaa badankood xaadirin howlka Afisyoone oo ay ka socotay hadaljeedinta murashaxiinta madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, taasoo keentay hadalhayn badan oo salka ku haysa maqnaashiyaha mudanayaasha oo badankood aan soo xaadirin teendhada Afisyoone ee ay ka socotay hadaljeedinta. gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa kulan la yeeshay guddiga doorashada madaxweynaha tobnaad, taliska ciidamada ATMIS iyo saraakiisha booliiska Soomaaliyeed oo ay kala hadleen amniga doorashada
iyagoo saraakiisha faray inay ka shaqeeyaan sidii sare loogu qaadi lahaa amniga. muqdisho ayaa martigelinaysa madaxda maamul goboleedyada dalka iyo marti sharaf heer caalamiya kuwaasi oo qeyb ka doorashada madaxweynaha. dowlad goboleedyada ayaa saameyn ku leh ololaha doorashada murashaxiinta xilli 48 saac ee lasoo dhaafay ay sheegeen qaar ka mid a murashaxiintu inay ka tanaasuleen murashaxnimadooda. 5 sano kadib 15 May 2022 Soomaaliya ayaa yeelan doonta hogaamiye ay u hamuun qabaan shacbiga Soomaaliyeed kaasi oo ka saaraya hubanti la'aanta dalku ku jiray muddo dhowr sano. taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM oo warbixin labaad ka soo saaray safarkii madaxda talisku ay ku tageen Somaliland ayaa sheegay inay doonayaan in iskaashi military ay la yeeshaan Somaliland. warbixinta labaad oo aad uga duwan warbixintii Khamiistii isla markaana aan lagu xusin siyaasadda Soomaaliya kaliya oo warbixintii hore aad loogu nuuxsaday ayaa lagu sheegay in Somaliland ay tahay dimuqraadiyad degan nabad ah oo adkaysi leh isla markaana uu Mareykanku aad u doonayo inuu xiriir la yeesho. waanu qadarinaynaa doorka Somaliland ay ku leedahay gobolka ee ah inay tahay dimuqraadiyad adkaysi leh degan oo nabada. AFRICOM waxay aad u danaynaysaa in ay sahamiso fursado dheeraada si ay u xoojiso xiriirka Somaliland ee ku dhisan danaha aynu wadaagno si aynu ula dagaalano argagixisada burcadbadeeda iyo tahriibinta ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika. talisku waxa uu xusay in kulamadii ay madaxda Somaliland la yeesheen Khamiistii diiradda lagu saaray xiriir labageesooda oo ay yeesheen Somaliland iyo Mareykanka la iskana kaashan doono ilaalinta nabadda gobolka Geeska Afrika. kulamadii 12 May ka dhacay Hargeysa iyo Berbera waxaa diiradda lagu saaray faa'iidada laga helayo xiriirka labageesoodka ah oo ay yeelanayaan Mareykanka iyo xukuumadda Somaliland. xiriir ballaaran oo dhex mara AFRICOM iyo militariga Somaliland iyo ciidanka xeebaha waxa uu kor u qaadayaa danaha la wadaago ee nabadda gobolka iyo ilaalinta wadooyinka ganacsiga ee muhiimka ah ayaa lagu yiri warbixinta AFRICOM. warbixintii hore ee taliska AFRICOM kaga faallooday kulamadii dhex maray madaxda Somaliland iyo iyaga ayaa lagu sheegay inuu Mareykanku Somaliland ula macaamilayo sidii qayb ka mid ah Soomaaliya. qoraalkaasi oo ka caraysiyay bulshada Somaliland isla markaana dadka reer Somaliland ee Twitter-ka isticmaala oo si toos ah uga jawaabay qoraalka taliska ay ka muujiyeen cara xooggan. waa tahay qaybaha dambe ee wararka aynu gudubnay Sheekh Maxamed bin Sayid Al Nahyan oo muddo soo ahaa dhaxal sugaha isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa si rasmi ah loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi sida ay warisay wakaaladda wararka ee dowladda Imaaraadka. waxaana xilkani loo dhiibay maalin kadib markii uu dhintay madaxweynihii dalkaasi Sheekh Khalifa. wakaaladda wararka ee WAM ayaa warisay in Sheekh Maxamed ay doorteen golaha sare ee federaalka waxaana uu noqon doonaa hogaamiyaha dalkani hodanka ku ah saliidda ee sanadkii 1971 uu aabihiis aasaasay. Sheekh Maxamed oo ku magac dheer MBS ayaa la kulmay xubnaha golaha sare ee federaalka oo ka kooban madaxda 7 imaaradood ee dalkaasi xilli uu dalkaasi galay baroordiiq loo sameynayo walaalkii ay isku aabaha ahaayeen ee Sheekh Khalifa. magacaabistiisu ahayd mid markii horeba si weyn loo filayay ayaa rasmi ka dhigaysa inuu hogaaminayo dalkani saxaraha ah ee ay ku nool yihiin 10 milyan ee qof kadib sanado badan oo uu talinayay aabihii oo sababa la xiriira xaalad caafimaad darro u geeriyooday. madaxweynaha hadda la magacaabay ee Sheekh Maxamed bin Sayid Al Nahyan ayaa dhashay 1961 isaga oo wax ku bartay dalka Imaaraadka Carabta iyo dalka Ingiriiska. waxa uu ka qalin jabiyay kuliyadda militariga Sandhurst ee ku taala dalka Ingiriiska 1979.
sheekh maxamed bin sayid ayaa waxaa loo arkaa ninka ka dambeeya isbedelada ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda ee imaaraadka iyo tan gobolka, islamarkaana ahaa madaxii ololaha ka dhanka ah kooxda islaamiyiinta ah ee ka howlgasha dalalka carabta. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ayaa intaasi ku dhane nabadgelyo.